الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتونا سلاماتين وارن السلام يا waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan aynu ku qabanayno su'aalaha diiniga aynu ku weydiinayno Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir Allah dhawro oo cilmiga ha u barakeeyo dhamaantii waan idin ducaynayaa halkan inta barnaamijku uu socdo waxaan fursad siin doonaa dadweynaha ka soo qayb galay masjidkan barakeysan su'aalahan aan ugu tala galay in ay ka faa'iideystaan iyadoo insha Allah xilliga Ramadaantana ay naga daawan doonaan daawadayaasha dal iyo dibad ku sugan telefishinka qaranka Soomaaliland baahintiisa gudaha dibadda iyo baraha bulshada kala duwan qof kasta oo aan fursad siiya waxa uu ku bilaabi doonaa magaciisa salaanta iyo hordhac waynu iska dhaafi doonaa si waqtiga aan uga faa'iideysano marka wuxuu qofku ku bilaabi doonaa magaciisa waxaana hebel su'aashayduna waa sidaa isagoo su'aasha soo koobaya si dad fara badani su'aalaha uga faa'iideystaan insha Allah intaana siin qofka ugu horeeya Sheekh Maxamed su'aashan qoraal ahaan ayayna lagu soo gaarsiiyay wuxuu leeyahay suularka ama suutiska marka la dhaqayo ama la maydhayo lama isticmaalo biyo oo biyo laguma maydho marka haddii najaas ay soo gaadho suurkii biyana aan lagu maydhahayn sidaa ma ku daahiroobaya qofka ugu horeeya ayaynu mikrofoonka insha Allah siin doonaa waxaan israacin doonaa 5 qof 5 qof marka ay su'aasha weydiiyaan ana lagu soo celin doonaa insha Allah واي انت سؤال la diyaarinayo Sheekh Maxamed su'aalaha qoraalka ayaynu ku socon doonaa insha Allah wuxuu leeyahay bishar barakeysan ee Ramadaan dadka qaar ayaa marka lagu jiro aan ogeyn inay gaadhay xilligii soomku uu bilaabmayay ama waaga barigiisa haddaba qofku hadii uu isagoo waagi bariyay uu wax cuno isagoo oon ogeyn inuu waagi bariyay ee uu haysto inuu habeenimo ku jiro maalinka muxuu ka yeelayaa miyaa lagu leeyahay oo uu soo qaleynaya mise maadaama aanu ogeyn sidaas ay ugu jirtaa sidoo kale su'aasha labaad ku lamaan wuxuu yiri hadii ay dhacdo in afurka ka hor maghribkii oo aan la gaadhin ama cadceedii oo aan dhicin buu yiri qofku uu afuro isagoo u haysta in cadceedii ay dhacday maalinka muxuu ka yeelayaa su'aasha saddexaad ama afraad aan idhaaho Sheekh Maxamed waxa uu leeyahay baryahan dambe waxa soo baratay dadka dibadda ama banaanka u aadaya si ay ubad u soo beertaan haddaba maxaa shuruud ay diinta islaamku u dejisay beeridda ubadka ma banaan tahay in qofku ubad soo beerto maxaa shuruud ku xidhan hadaysa banaan tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd su'aashan hore shayga la maydhayo waa in biyo lagu maydhaa waayo biyahaasi waliba yihiin daahiran mudahiran biyo nadiifa wax nadiifinaya kuwa laynagu adoonsada waa kuwaas qofkuna dahaaradiisa waa inuu iska hubsadaa waayo cibaadadii ansixiddeedii baa kaga xidhan waxyaabaha qaarkood xaqiiqadoodaba ma ogin kiimikada iyo waxa la gelinayo waa laga yaabaa in uskaga ku kaakiciyaan biyo wax ka dareeraya aanu jirin marka sharcigeenu wixii uu inagu adoonsaday ee biyaha ahaa waa in lagu nadiifiyaa cidda wax ka nadiifsanaya qofkuna cid aamina waa inay tahay oo aan dharkii ka wasakhaynayn ilaahayna wuxuu ku amaanay awliyadiisa iyo dadka muuminiinta ah inay yihiin dad qalbigana nadiifiya dharkiya jidhkana nadiifiya in allaha yuhibbu at-tawaabiin wa yuhibbu al-mutatahhiriin su'aasha labaad qofku hadii uu bisha Ramadaan cuno suxuurtii iyadoo uu moodayo waagi inaanu bariyin
laakiin markuu cunay buu arkay iyadoo waagii caddaaday wuu soo celinayaa maalintaa dembi kuma laha umuu kasin laakiin wuu soo celinayaa waayo muu furinin shardigii laynoo dhigay ila ilaahay wuxu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl habeenkii cunoo cabba ilaa inta waagu caddaanayo markuu waagu caddaado joojiya ilaa inta gabalku dhacayo marka muu joojinina uu sii waday waxaa cad markaas maalinkaa in lagu leeyaho uu soo qallaynayo hadduu qofku cuno qoraxdii oo aan dhicin ase uu moodayo inay dhacday oo markuu cunay buu arkay iyadoo halkaa ka muuqata iyadana sidoo kale maalinkaa uu soo qallaynaya isla aayaddan unbaa daliilu ah ila leyli baynu soo ayay aayaddu leedahay uma atimu siyaama ila alleyl ilaa habeenkii inta la gaadhayo dee habeenkii lama gaadhin wakhtiga lagu dhigay wuxuu ahaa an tasuuma nahaara ramadaan maalinka inaad soomanaato maalinkuna wuxuu ka bilaabmaa waaga dilaaciisa ilaa dhicidda qoraxda markaa qofkaasina wuu soo qallaynaya sidaa daraaddeed cibaadadan dee xil baa inaga saaran waajibka ilaahay inagu inagala xisaabtamayaa qofku waa inuu dadaalo xagga horena waagu wakhtigu baryo waa inuu yaqaano iyo markuu hore u socday iyo markuu dib u socdo xagga dambena qoraxdu wakhtigay dhacday waa inuu og yahay ama wakhtigay dhacayso dadka had iyo jeer adaama ama mu'aadiniintana xil weyn baa saaran ammaanay ummadda u hayaan marka ammaanada waa inay ilaaliyaan way dhacdaa dadka qaarkood oo wakhti aan sax ahayn iska eedaama amaba qoraxdii oon dhicin eedaama marka ummadda uu lugooyo dembi buu ku leeyahay labadaas masalaba su-aashaas jawaabteedu waa nooca su-aalahana waxaan jecelay maadaama bishii ramadaan ay nagu soo dhowday inaynu u badinno xagga bisha ramadaan cibaadaadka qallaha waxyaabahaas iyo wixii cibaadada un la khuseeya waayo su-aalaha kale aad bay u badan yihin su-aashan kale ee iyaduna la xidhiidhaa ilmaha la beerayo waxaan isleeyahay arrintaas beryahan dambe way soo badatay kolay daraasadna way u baahantay dadkii maxaa dhalmala-aanta ugu sababa dhalmala-aanta ilaahay baa keena laakiin kolay sababaa jira dadku sun badan bay isticmaalaan macsiyo iyo dembi badan baa jira asbaab baa kolley jirta marka taa waxaynu u daynaynaa qolada caafimaadku inay daraasadda aada u baadhaan oo beri dhaweydoon hindiya tegay ooba la yaabayba suuqyo dhan dad ka dukaamaysanaya oo suuq dhan loo furay ayaa la waa dadkii dhalmadoonka ahaa rag iyo dumar isxambaara wada socda ilaa ma kala hadhaya reerkii oo dhan wuu soo guurayaa markaa odagii islaantii baa meesha maraya marka arrintaa taas waa talo xagga jawaabta sharciga marka la eego haddii uu la qabsan waayey ama ay u suuroobi weyday ilmihii inuu calool galo waa loo beeri karaa maadaama yiin laba xaasoo isqaba laakiin shuruudaha ku xidhan waxa weeye sida cilmiga fiqigaba caanka ku ah ciddan beeraysa waa inay tahay hawshan qabanaysaa dhakhtar aamina ammaano leh ammaanadaa waxbaa laga arkay fuqahadu ay sheegayaanoo hadduu yahay dhakhtarku mid gaala ama muslinaan ammaano lahayn uu yahay ila ammaanadu waa cajiibe ammaanadu waa iimaankii wax badan baa isweydiin kara qaar baa jinsi aan kii ahaynba loogu beerayba qaar soomaaliya ilmo caddi ka soo booday war maxaa dhacay dee mid gaalay u geeyeen ama bina ammaano ah waa inkaar weyn shuruudaha waxaa u muhiimsan labadan qof inaanay isfurin ama kala dhiman hadduu isagii dhintay waa lay weydiiyey su-aasha odaygiiyo biyihiisii taranka lahayaa rawaxay islaantii ma lagu shubaya dee miyuu qabaa ma qabee isna ifku jooga iyana aakhiro isagiina aakhiru tegayana adduunyadiiba joogta marka firaaq baa dhacay firaaq waa go-ay caqadkiisu hayay waa inuu nool yahay waa inuu qabaa shuruudaha kuweelahaasaa ka mid a waa inaan wax kale lagu tarixin oo maaragtay biyo cid kale iyo ammaanaday soo wada hoos galayaan shuruudaha marka la helo waa suuragal arrintaasi in la sameeyo laakiin aad ha la ysaga hubsado wallahu aclam waa tahay waxaan ku noqon doonaa
dadkii su'aalaha inoo weydiinayay insha Allah ballankeenu waa sidaan sheegay magacaaga oo dhammaystiran iyo su'aasha aad soo koobtay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مقعيق وخليف محمد حسن سؤال عن شيخ ويدينيا وحوي سدح سؤالات وصلاة كصابسن توقع الرئيس وحوي تدك معمومين تاهي سيدا إنه أكسونا مركا وإمامك السلام عليكم ينك توير هذا أي قيبت صلاة كهرد على وذا كعام أرنتاسي ببنان تاهي طلباتنا وحوي إمامكو مركو سوق مأمونكو isagoo faatixadii wax kamid akhriyay ma'muunku ma akhriyay faatixadii mise waxa ka qaadaya imaamka su'aasha saddexaadna waxay qofka musaafirka ah oo aniga oo musaafir baalmilatar waxa salaadii duhur oo kale imaamka salaada ma la dhamaysanaya mise waan ka goosanayaa saddexdaas su'aalood baan sheekha weydiinaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sheekha waxaan weydiinayaa waa hal su'aal oo kaliya sheekh nin gaari wata oo dareewal ah baa waxa uu yimid nin wuxuu warniyo iqaad dareewalkana wuxuu yiri kuma qaadi karo kumana qaadayo meel aan ku saaro ma hayo kabacdi ninkii gaarigii xagga damatu isku nabay xag gadaal intuu ka fuulay oo gaarigii u baxay iyadoo la ogeyn oo dareewalkii ogeyn ninkiina gaarigii waa ka dhacay waana dhintay ninka xukunkiisu muxuu noqonayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وما سنتهاي وصير أقصد إن شاء الله ويديها كحجة هل كان بوي من دونا سيدي أيوه إن شاء الله ما قاعد شيء دونا عدة سؤالها دونا سيدي ودي سنة صير واتمرك هراء أنت وكشرو قف كهراء صير سمرك أو لما يسبق هذا كحجة إن شاء الله صير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ورسم محمد جامع الشيخ السؤال بروينا كويديو سؤال شو حتى هاي سورة ياسين أيدي فرت منات إلى حكمر ما صدح رسول بصدر النبي الهيري صدح ذا الرسول تفسير كي ابن كثير وحشيجة يعني إن تاي ليكوس يوحنا يابول صدح دون حوين لما ضي قفة إنجيل كقري يميدي أساس ديتا كريستياني بدا شيخ ما قرأت مركب واحد كودين الشيخ سؤال شيء نجي جوتر ربي أو نكريستيان مرة يودي سؤال شاس ويقعد إن تاي يعني مسيحيين ديتا كان إنجيل كوين تاي دين سحل قرآن كي بعدين بيقول ما قرأت الشيخ هذا ما سنت واي سؤال واحد إن شاء الله سؤالها نروش كوسابسن أحكامته كوسابسن وبهانت حكم كذا الآيات إن شاء الله ويدين أنت شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu axmed maxamed cabdilaahi waxaan sheekha weydiinayaa qof dumara adigoon dabeecaddeeda iyo quruxdeeda aan eegin diintay hayso amba ay taqaano ma ku jeclaan kartaa intaasaan sheekha weydiinaya asalaamu calaykum soo dhawaada sheekhaan u dhiibi doonaa intaan insha allah inaga jawaabi doonaa laakiin ciddii su-aal u baahana soo dhawaato insha allah su-aalaha hore ee khaliif de waxay ku saabsanayd marka uu imaamku salaada ka baxo iyadoo aanu assalaamu calaykum tii dhammaynin bay dadku kacaan ma saxbaa ma sax maha waa qalad imaamku markuu salaada dhammeeyo ee labada salaamoodba uu dhammaysto ta midigta iyo ta bidixda wakhtigaasuu salaaddii ka baxay wakhtigaasaanay ayaa loo banneeyey ama fasax ay u tahay qofkii ku xidhnaayo wuxuu hadheen inuu kaco marka laba arrimoodba waynu ku degdegnaa waa qalad intaanu imaamkii salaadiiba dhammaynin oo labadii assalaamu calaykum ka dhammaanin baa la istaagaa assalaamu calaykum ta bidix marka uu leeyahy dadku way iska taagan yihiinba faatixada akhriyayaan waa degdeg qalad ah qaladka labaad waxa weeye qofku had iyo jeer marka aamiin uu leeyahy imaamku waynu ka horeynaa wala daaliin intaanu dhammaynin aamiin baaba la sii leeyahy nebiguna wuxuu uhi idaa amana alimaamu fa aaminuu markuu imaamku aamiin yidhaahdaa la raacinaya wama waafaqa taamiinu taamiina almalaa'ikati qufira lahu maa taqadama min denbi markaasaa aamiintii malaa'igta iyo teenu iswaafaqaysaa dembi dhaaf la helaya marka la sugo weeye aamiinta imaamka waxa saddexaad oo iyaduna degdega ka mida dadku had iyo jeer marka imaamku rukuucda ku jira u yimaadaan
ma eegaan inuu soo toosiyo in kale way isweydaartaanba isagoo soo toosay soo socda ayuu ku xidhanayaa isagoo degdegaya marka salaadu cilmi bay u baahantay su-aasha labaad ee ah anigoo imaamkii ku xidhan faatixadii dhammaystireen ayaa uu rukuucay maxaan yeelayaa haddaad ahayd masbuuq waad iskaga tegi faatixada waa lagaa dhaafay haddaad ahayd mid la bilaabayna faatixada ha ka kala tegina dhammee qofka laga dhaafay faatixada waxa weeye qofka imaamkii aan soo gaadhin ee la rukuucay ama isagoo faatixadii bilaabay imaamku rukuucay kaasaa faatixada laga dhaafay laakiin qofka la xidhay ilaa uu faatixada dhammaynayo kama tegi kara faatixada su-aasha saddexaad ee qofkii musaafirka ahaa ee ku xidhay qof salaada dhammaystiraya waa inuu dhammaystiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu reer maka tukinayay isaguu gaabinayay iyaguna way dhammaystirayeen markaasaa wuxuu lahaa dhammaystira reer makow annagu safar baanu nahay laakiin haddii sidaa cagsigeed ay tahay oo qofka wax tukinaya uu yahay kii dhammaystirayay musaafirkuna waa inuu dhammaystiro musaafirku se isagoo gaabinaya hadduu mid dhammaystirayaa ku xidho oo deegaanah isagu waa dhammaystiraya farqigaasaa udhexeeya waa masaa'il fiqiga dhexdiisa macruufku ah daliiladoodana leh su-aasha xaajigaasi uu ina soo weydiiyey kollay garsoor bay la xidhiidhaa dacwad laba dhinac baa isku haysta laakiin waxaan ku soo koobi karnaa uun qofku hadduu gaadiid wato oo direefar uu yahay sawaaqahoo gaadhiga wada waxa uu ku qaamoobi karaa cidda wax ku noqotay markuu ogyahay laakiin haddii qofkaa dabada qabsaday ama meel galay aanu laba soconinba qofkana xadgudubka sameeyey si kale haddaynu u dhigno qofka darawalka ah mar walba wixii ka yimaada gaadhigiisa laguma leh waxaa lagu yeeshaa markuu xadgudub sameeyo ama gaboodfal wuu xadgudbay wax aanay ahayn inuu sameeyuu sameeyey ama wax ay ahayd inuu sameeyo oo waajibaadkiisa habuu ka gaabiyey markaasaa lagu yeeshaa laakiin wixii aan labadaa mid ahayna maqaadiira ama ay dhexdiisa ka geystaan cid aanu ogeyn qof baa ka booday dabaduu qabsaday wuu isqariyey isaga laguma yeesho taa waxaan uga jeedaa innaga dadkeennu mar walba way saaraan qofka gaadhiyow gaadhi ma tahay ka gaadhigalaa lagu leeyahy darawalow darawaluun mato ma waday uun waa lagugu leeyahay markaa waxaa la raacayaa waa sharciga haddii sharciga la raacana wixii lagu helaa waa xalaal haddii sharciga laga baydhaana wixii lagu helaa waa xaaraan marka ha raadininu inaad wax heshee wax xalaala xel su-aasha inankaasi ina soo weydiiyey waa guurmeer baanu maraynaya allaha u fududeeye inaan quruxdii aan ku jeclaado dabeecaddeedii iyo diinteedu baan ku jeclaaday dabeecadaheediiy waxaana maan eegin waxaa la isku jeclaadaa waa diintee koobaad dabeecaddana waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam diin fadfar bidaati diin oo diintu waa waxa qofka qof ka dhiga qiyamka akhlaaqda sabirka dulqaadka raxmadda waxaasoo dhan siiya marka hadday diin ku yeelatay dabeecaddeedana dee dadku ilaahay ma simine waad iskaga samri intaad maaragtay xejin karto laakiin doorashada nebigu fadfar bidaati diini buu leeyay diinta ku dooro marka tii uu nebiguna faray haddaad ku dooratay way fiicanta ninkana waxaa lagu dooranayaa diinta iyo dabeecadda marka tii asalka ahayd haddii aad raacday allah kuu barakeeyo wax wanaagsan weeye wallahu aclam allah barakeeyo sheekha waxaan ku noqon doonaa dadweynihii su-aalahayna weydiinayay intaanan dhex gelin su-aalaha qoraalka nagu soo weydiiyey soo dhawow walaal afkaaraha iyo wax kale oo dhan waynu joojinaynaa insha allah su-aashoo gaaban un baynu gelinaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa khadar xuseen sahal su-aashaan weydiinayo shiikha waxay tahay inta badan marka masaajidka lagu ictikaafayo aynu kalaamka rabbi qur-aanka akhriyayno masxafkii masaajidku inoo yaallaa dadka badankiisuna telefoonnada ayay la soo baxaan isagoo telefoonkii qofka eegaya haddii la doono
wax kale kaga soo baxayaanoo gabadh qaawani kaga soo baxaysaa soo dhex gelaysaa kalaamkii rabbi arrinkaas maxaa lagaga talin lahaa dadka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay ma inuu musxafka qofku ka akhriyo qur-aanka ayaa fadli badan oo muhiim ah mise waa inuu taleefanka iyo musxafka ka akhriyo waa isku mid weeye su-aashu waayo walaal soo dhowo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ waxaan weydiinayay su'aal ku saabsan safka. Sheekh markuu safku kala go'an yahay jamaacada ma la helayaa? igu cali walaal nagu cali. Su'aashu waxay ku saabsan tahay safka salaada marka hadduu kala go'an yahay dadka ka dambeeya kala go'aas ajarkii ma helayaan jamaaca. Assalaamu calaykum sheekh aad baan salaamayaa. waxa dhacday anigoo alaab iibinaya ayaa meeshayaan mas'uulka waxaan markaa alaabtii oo darasinaa ayaan midhahaan baan u iibinayay markii alaabta dhamaatay ayaa midkii kale waxay igu yidhi alaabta masaas mid awalba ku iibinaysay marka sheekh halkaa ma dee dayn baa lagu leeyahay mise sax weyn daa maadaama aanan ogaan u iibinayn alaabtaa alaab baan iibinayay markaa meeshu shoobin bay ahayd alaabta markii la keenay midhahaan halkii midba laba ku jiray anna midhahaan baan u iibinayay markay dhammaatay oo sii dhammaanayso mid kale igu yidhi kii ila shaqaynayay masaas mad iyaad ku iibin jirtay beryahanba midka keliya waxaa ku jira labe waayo markaa waxaa lagu qabsaday lacagtii waxba lama qabsanin ninkiina ma oga aniga ayaa isxisaabiyey gadaal وما صنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ هي شباب بوان سلام يا بعد السلام واحد شيخ ويدينا يا قف بعض كرنيسو وتوجا وعادوا تقالوا وإحنا كيفين كرتها وما صنت سؤال شلبات واحد لحد داتي هراء والشيخ كجوابي حدي أي قف كبر صونك أو سدا وقت تجو موحبو عنايا مساء وقف صومالو كلو هانيا تاسنا سؤال صدحات نبي وحده عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة مركز قيمته قالوا فلا تقوموا حتى تروني كان النبي عليه الصلاة والسلام مركز ولي هي إلا يعركتان هكعنا نبي من ملبك الصبح حياة مساء استاجي سين لا الأرك تذكر أنت بدن يستاجي يعني مركز أدبان السلام يا رال نادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أنا ويديها لبا حاجة وقالين شيخ محمد سؤال شن وحي لسه كسب سنت هاي بشر بركة سن وحلي هاي داوضاني أما ويديهاني بشر بركة سن رمضان ورشدة إمي السقف أيا لجو يليه أما لجو سومية حدي أي قادو أفرك هذانا أما عيدنا إمي السقف أيا لقى قبليه. دار مياه lagu leeyahay oo ma shardi ba in qofkii arkay haduu qof kale tayahay ama bay laba yihiin in la daariyo way soo dhow dooshan sheekh maxamed iyaduna waan raacin doonaa waxa weeye soomka alxamdulillah dabcan kullu nin dhalinyaro soo qoray wuxuu leeyahay aniga oroosa salaam ayay soo gaadhay bishii barakaysan ramadaan marka wuxuu yiri maxaan yeelayaa isma adkayn karo marka maxaad igula talin lahayd may ogoshahay buu diintu in aan afuro maadaama aan oroosahay si aan mar kale u soo qalleeyo waay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ لبي سؤالات بان ويدينيا سؤالش كبعد حوي marka la tukanayo fadhiga kursiga in lagu tukado maxay diinta islaamku qabtaa xukunkeedu muxuu yahay su'aasha labaadna waxa weeye su'aal ku saabsan ramadaanta waxa weeye fidyada qofka waalidka ee weyn laga bixinayo ma siin karaa waladkii uu dhalay sidoo kale meel kale oo aan magaalada uu joogahayn ma loo diri karaa waayahay aad baan maasan tahay sheekh maxamed intaasaan ku joojin doonaa sheekhaan wareejin doonaa insha allah laakiin laba su'aalood oo qoraal weydii oo la xiriira su'aalaha hore ayaan raacin doonaa wareejinta zakaatul fidriga buu sheekh maxamed inkastoo hore fidyada ahayd maxaa loo baahan yahay qofka marka la guddoonsiinayo qof meel kala jooga ama aan markaa la joogin
intoon teleefon kula hadlo teleefon ma igaga guddoomi karaa oo ama ma odhan karaa qof ii dhow hebel ayaan kuugu dhiibayaa hebel ma wakiilatay marka hadduu yidhaahdo haye hebel iigu dhiib sidaa ma iga ansaxaysaa waxa uu leeyahy dadka dibadda ku nool ee zakaatulfitriga soo dira amaba fidyada ay bixinayaan rabadaanta lagu leeyahay soo dira ma waxaa laga doonayaa gaar ahaan zakaatulfitriga buu yidhi waxyaabihii halkay joogaan quutulqaalibka u ahaa mise halkay u soo dirayaan iyamaa laga doonayaa buu yidhi su-aashaa hore khadir waxay la xidhiidhay iyamaa wanaagsan qur-aanka kariimka marka la akhriyayo in kitaabka qur-aanka ee musxafka laga akhriyo iyo in telefoonka laga akhriyo telefoonkii marka uu qur-aankii saaran yahay iskriimka wuxuu la mid noqonayaa musxafkii laakiin dee waa inuu qofku iska xidhaa wixii kale ee mashquulinayay oo telefoon ahaan looma diidanaa laakiin waxaa loo diidi karaa sidaa uu sheegay walaalkeen waxaa soo dhex gelaya marka hadduu ka madax bannaan yahay waxaas oo sida xaashiyahaasoo kale uu cad yahay oo qur-aankii kariimka oo saafiya laga akhrisanayo dhib ma laha inkastoo fadilayay wanaagsan tahay misxafku caafimaad ahaanba kitaabka qur-aanka ah uu ka wanaagsan yahay mobilkan dee waynu ognahay isagoo electronic xagga indhahana uma fiicna laakiin dadku hadda waxay u badan yihiin inay kitaabka ka akhristaan misxafka ee qur-aanka kitaabka ay ka akhristaan telefoonka baan leeyahay marka wixii kale inuu qofku iska xidho weeye hadduu ka akhrisanayo misxafka mase la diidi karo su-aasha kale safka hore hadduu kala go-an yahay dadkii ka dambeeyey miyaa wax u dhimaysaa maya waxba uma dhimayso safka hore haddii la xidhiidhin karayana waa in la xidhiidhiyo haddaan duruufi jirin laakiin dadka ka dambeeya waxba uma dhimayso su-aasha kale odhanaysa waxaan iibinayey qof baan wakiilo ahaa oo dukaan u iibinayay marka wixii shaygii baa waxaan iibinayay isagoo laba laaban halkii hal dersin ay ku jireen baa laga yaaba 2 dersin ay ku jiraan hal dersin un baan u iibinaya weligayba ninkiina ma oga maxaa yeelaya dee u sheeg ilaa ammaanad haysi ilaahayna wuxuu in allaha yaamurukum an tu'addu al-amaanaati ilaa ahliha ammaanada waxaa laydin farayaa ehelkeediina gaadhsiisaan maad gaadhsiin ehelkeedii marka waa inaad u sheegtaa xisaabi wixii qaldamay arrintaasi qalad bay u dhacday miyaa laygu qorayaa mise waa layga saamaxayaa warku waa inuu caddaado haddii kale ammaanadii baad khiyaamaysay qalad wuu dhici karaa laakiin qaladka sheeg marka haddii mas-uuliyadaad ku leedahay dee waa lagaa dayn ama waa lagaa qaadi qarintu laakiin waa xaraam shayga aadaa lagu leeyay su-aasha kale qof tuuga wax ma ka iibin karaa maya haddaad ka iibisa aadna tuugun baatay bilaysku waxay idhahdaan waa tuug iyo tuukalkaal waa sax weeye fikrad saxa weeye alaydi almutaratibati min yadi alghaasibi fahya ghaasiba bay idhahaan fuqahadu waa qaacido gacantii wax soo dhacday gacanta ka sii qaaday iyana waa mid kale wax soo dhacay hal xaaraani nirag xalaala ma dhasho soomaad maqan marka shay xaaraana kol haddii qofkani uu iibinayo og tahay inaad ka iibsato aadna xaaraami baad tahay tuug kalaad tahay waxaana xaq loogu leeyahay tuugii iska tegi waxaagiibuu dhacay qofkii xoolahan lahaa inaad la raadsato oo aada u geyso tuugtuna sidoodaba iyo dadka wax dhaca haddii aanay ogeyn in waxaan laga iibsanay mabay qaadeenba walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ayaad ku garab gashay xaaraan baad isku dayda inaad ka faa'idaysato markaa tuuggii baad dhiiri gelinaysa suuqiisii baad xaami ka dhigaysa tuugguna dee wuu noqon karaa mid qof wax ka xaday iyo mid ummad wax ka xaday dantii guud iyo hantidii dowladda uu soo xaday haddaad ka sii iibsato dee aadna tuug kalaa tahay hantidii ummadda ayuu qofkani soo boobay ama dhul ha ahaato ama guryo ha ahaato ama gaadiid ha ahaato adna waad ka sii iibsanaysa waa tuug kalun baa tahay marka arrimahaas waa arrimo aada u khatar badan moobaylada la boobayo kombiyuutarada kabaha masaajidka laga guranayo dad halkan abaa loo geynayaa way arkayaan inuu
markay saa eegaan kani tuug yahay afar kaboodla ah wuu u sii camirayaa isna waa tuug kale labadooduba maxkamad bay taagan yihiin su-aashan kale iyaduna odhanaysa qofku haddii waagu uu u baryey kadibna uu cunay cunadii uu suxuurtay isaga oo aan ogeyn markuu ogaaday in waagii baryey maalintaa miyuu sii cunayaa mise wuu afxidhnaanaya bishu xurmay leedaho karaamay leedahay karaamadii bisha meel kagama dhici karayo ilaahayna wuxu uhi fattaquu llaha ma statactum intaa karaysaan ilaahay ka cabsada marka waad karaysaa soomanow maalintaa laguu tirin maayo laakiin aadaabtii iyo karaamadii bishaad ilaalinaysa su-aasha kale waxay ahayd bisha ramadaan araggeeda intee oo markhaati baa lagu soomayaa ciiddana intee oo markhaati baa lagu afurayaa mar walba waajib waxaa alixtiyaadu lilcibaada in cibaadada loo dadaalo xagga hore dadaalka cibaadadu wuxuu ku jiraa haddii hal qof uu idhaahdo bishii waan arkay oo caadilah intay noqon lahayd ramadaan inaga fakatay halkaa qof baa lagu soomayaa sidii dhacdayba waqtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam xagga dambena iyadoo cibaadada loo dadaalayo hal qof laguma afurayo marka ciiddee laba loo baahan yahay laba waa inay arkaan qaybta dambe ee su-aasha miyaa la dhaarinayaa mee sideedaba xagga shareecada markhaatiga lama dhaariyo hal mal baa la dhaariyaa waa xaaladda dardaaranka ee qof gaalihi uu markhaati galo oo taasina waa arrin gooniyaho suuratulmaa-ida qaybteeda dambea ka warramaysa laakiin qofka muslimka ah waxaa lagu aaminaa markhaatigiisa iimaankiisa iyo cadaaladiisa cadlu riwaaya iyo cadlu shahaadaa jira warkana qof caadila aynu ka qaadanaynaa markhaatigana qof caadila ilaahayna wuxu uhi wa ashhiduu dawaa'i cadlin minkum markhaati ka dhiga laba idinka mida muslimiintiinoo caadila dhaariya lama odhan xaaladaasunba xalfi la sheegay markaa markhaatiga la dhaarinayo sax maahay qofka kalsoonida aynu ku qabnaa waa cadaaladiisa su-aasha ninkaa dhallinyaradiina soo weydiiyey la yaabi mayno anigoo aroosa islaantaa cusub dhandhan baan ku hayaa ma cuni karaa buuli ramadaan dee nin baaba nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi sinada ii bannee haddii lagu qaylqayliyeyna war iska daaya buuha waa kii qanciyo nebigu waxaynu ku qancinaynaa xuquuq baa jirta waxaynu abuuranay inaynu xuquuq xaqiijinno xuquuqda waxaa u horeeya xaqa ilaahay xaqa naftaadaa ku xiga xaqa waalidka xaqa oorida xaqa ubadka xaqullaahi awalu lxuquuq xaqa ilaahay waa ka xuquuqdao dhan u horeeya markaa qofku xaqa ilaahay iyo kiisa kolkay taagantay ka ilaahay baa horeynaya ka oorida markay taagantay ka ilaahay baa horeynaya si kale haddii loo eego cibaadadan la inagu addoonsaday waa mashqac waa wax laynagu tijaabinayo bal inaad shahawaadkaaga iyo baahiyahaaga ka tegi kartood janno yeelato iyo inaanad ka tegi karaynin oo naftu ay ku qaadatayoo jannadii aada weydo tijaabaa lagu marinayaa waa kan xadiidalqudsi ilaahay kule markuu qofka sida fiican u abaalmarinayay yadacu dacaamahu wa sharaabah wa shaawata qofkani cunadii iyo cabiddii iyo hamadiisiiba uu iska daynayaa min ajli ilaahay daraaddii buu daynayaa taasuu qofku wax ku helay markaa qofkii soomka kari kara ilaahay wuxuu uhi faman shahida minkum shahra falyasumhu wa amar qofka aan safrin ee aan geeriyoonin ee goobjooga bishaa ha sooma buu ilaahay markaa tijaabada ayaynaan ku fashilmine aan iska giijinno su-aashan kale ee ah salaada kursiga lagu tukanayo dee qofku haddii duruufi hayse wuu ku tukan karaa laakiin mar walba intuu karaya lagama dhaafayo laa yasqutu lmaysuuru bilmacsuur baa qaacide ah wixii aad karaysaa kaagama dhaco waxaanad karayn haddaanad fadhiga aanad kari karaynin iyo sujuudda laakiin sarajoogga aad karayso salli qaa'iman buu nebigu leeyahy sarajoogga ku tuko markuu xadiidkii saxiixa cimraan ibnu xusein la hadlayay markaa sarajooggaad ku tukan ma fadhiisan kartid kolkaasaad kursigii ku fadhiisan doonta laakiin adigoo sarajooggii kari karaya dee kursiga ha iskaga fadhiin markaa taasunbaa loo eegayaa adiga oo kari karaya inaad fadhiisato
أما أتسجودنا كرسيها فولين إلا فاتقوا الله ما استطعتم مركوا إلهي كلي أنت كريسان إلهي كعب صدى يوعي بعد يستوي وحاد كريس حاجة بدم قشية رب بسيطة وحكوها تاه وأنا التي معض وحي خشوع ذكاء تكسين يا حنون بدنه مشقة سيادة أيوم بالديدين لكن مشقة عادية وابا وحي الله إنه تجابين عبادة الله جديبة سؤال شكلا يدنا أرنا إيسا في ديدي ملسين كرا أبدك مالس كلام ملقين كرا مايا قفك سكات فدرجة هي في ديدا هي كفارة جودك مسينا يصدح قف مدنا أريد يسمسينا أيوه أبدك سنة مسينا أيوه والدك سنة مسينا أيوه والدك دوا ولا بدر لنعبة أبو هوي أوو أييو ubadkuna waa kuwa dhashiya kuwa sii dhaleen xaaskii qoliyahaasi kuguma laha waxyaabaha la sheegay biil bay kugu leeyihiin dadka qaybna waxaad waajib ahaan u siinaysaa biil qaarna waajib ahaan saka iyo kafaara gud baa loo siinaya labadaydaba ma jiro qofka dhinacan aynu ka dabarnay hawshiisa waa dadka kale aynu haddana dhinaca kale wax ka siinayna sharcigu saas uu kala duway markaa sakaatu fudrigiina taa iyo sakadii xoolaha iyo fidyadii iyo kafaara gudkii iskaga mid bay noqonayaan dadka biil kale lama siinayo su-aashan kale ah iyaduna way raacsanaydun sakaat fidriga iyaduna khusayso waa inaga sheegnay waxay raacaysaa sakaat fidriga ma la naqlin karaa meel kale ma la geyn karaa maya asalku waxa weeye sidaa uu nabigu sheegay sadaqatun tuukhadu min aghniyaahim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim waa saka laga qaadayo maalqabeenka halkaa jooga miyiga jooga magaalada jooga isla dadka goobta jooga uun ayaa lagu celinaya asalku waa caynkaa ummadda xoolaha lehee maalqabeenka ah dad fuqara ah oo ehela oo asxaaba oo jaara eeganaya xoolahooda way ilaalinayaan way u ducaynayaan way la dadaalayaan waa ku faraxsan yihiin waanay ku yidi diilanayaanoo waxay leeyihiin dheri ninkii ag joogaa laf kala baxa markaa kolley maalinta oo wax bixinaya hebel beertaa goynaya sekada bixinaya wax idin siin doonaa haddaad weydaariso cadaawad bay kuu qaadi naxdinina waa iman asbaabtaa daraaddeed baa sharcigu leeyahy iyaga hala siiyo laba jeer bay culimmadu sheegaan mar waxa weeye marka fuqara halka aad joogto laga waayo dee waa la naqlin karaa meesha kale fuqara kugu dhow baa la geynayaa amar marka baahi adagi ay jirto dad qaraabo ah iyo dad duruuf adagi ay jirto markaana waa loo naqlin karaa qiirashaasi way jiraan dadaa qaraabatiin baa waddankii jooga ama miyigay joogaan iyagana markaana lama wada siinay qayb ka mida waa la siin karaa wallahu aclam